suugaanta waxaa lagu tilmaamaa halbeega ummadi leedahay ama buugga dhiganaha sooyaalka nolosha tixraaca aragtida ku aadan macnaynta ereyga suugaan waxa uu xambaarsan yahay miisaan aad u culus qaxitaan ahaan suugaantu waa erey murtiyeed leh qaafiyad uu ku socdo iyo luuq wanaagsan kana turjumaya dareenka uu ku salaysan yahay ama micnaha uu xambaarsan yahay waxaa la tiriyaa in suugaanta loo qaybiyo tix iyo tiraab suugaanta Soomaalida waxaa ugu caansan gabayada garaarka jiiftada baraanburka heesaha guurowga iyo shiribka iyo mahmaahda oo qayb ahaan ka wada tirsan suugaanta loo yaqaan tixda qarnigii 20aad suugaantu waxay ahayd aasaaska nabadda iyo colaadda iyo warbaahinta ugu awoodda badan dunida marka dib loogu laabto dhaqamada Soomaalida iyo Carabta oo aad ugu badnayd halabuurkii ugu caansanaa ee tiriyay gabayada Carbeed ee caan baxay waxaa kamid ahaa Baraska Imruul Qays Cantara bin Shadaad Hinda bint Cutba al-Asma'i dhanka Soomaalida marka la eego halabuurkii ugu caansanaa waxaa kamid ahaa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan Garaad Faarax Wiilwaal Taagowgaas Ismaaciil Mire Cabduqaadir Xirsi Siyaad Yamyam Maxamed Ibraahim Warsame Xadraawi Maxamed Xaashi Dhamac Gaariye dhanka kale marka la eego heesihii hore ee Soomaalida waxay ahaayeen kuwo ka turjumaya wadaniyad xeel dheer dareen jacayl iyo hoga tusaaleyn sida la xasuusto Cabdi Deeqsi Warfaa waxa uu dhashay sanadkii 1920 iyo waxa uu ahaa wiilka afraad ee Abo Warfaa waxa uu ahaa fanaankii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed iyo muhandiskii mashruuciyada qaaciga ama qaraamiga sidoo kale fanaaniintii ugu caansanayd fanka Soomaaliya waxaa kamid ahaa boqorkii codka Maxamed Salebaan Tubeec Xaliimo Khaliif Magool Xasan Aadan Samatar Hiba Maxamed Gudoon Hiba Nuura Faadima Cabdullaahi Maandeeq Axmed Yaasiin Digfeer iyo Maxamed Moogal Liibaan